السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. maantay waxaan salaama ummadda Soomaaliyeed oo dhan, ummadda Sooman bisha Ramadaan khayrkeeda Allah na soo wada aadiyo. Waxaan caaw u soo galay meeshan dhibaato yar oo dhacday. Waxa waaye Facebook-gaygii ayaa la jabsaday, dadna ku shaqaysanayaan, waase lagu maqan yahay. هلا يقرأ رالي هذا هدي وحيابة خلدنا القصة قرا هلا يقرأ رالي هذا all my friends أنت إنعب أنت اجعل كلي وحاسور تودا إن مقع بينا blocking oh my head وحلا جيابا إن يدتك وحخلدنا وح بين أبورة وحيابة أنا لهن إن يقدوبان مركب وحن رجينا يا دتك يغانو iyo dadka aniga walaalahay iyo dadka ehelkay dadka saaxiibaday iyo Soomaaliya oo dhan wixii la soo qoro in aan run loo qaadan because Facebook-gaygii waa la qaatay, dad xumaan raadisa qaatay, dhawaqna meel dheelaale dhagaxna meel dhow. Magacayga iyo sharaftayda iyo waalidkay sharaftooda iyo meeshan ka soo jeeda sharafteeda mar rabo sumcad xumo iyo wax beenan oo aniga dhihin in meesha lagu soo qoro iyo caay aflagaadii waxaan weligay la soo barin. marka insha Allah dadka sameeyay waa lagu maqan yahay. annaga waxaan joognaa North America, wadan hore u ilbaxay oo wax walba la og yahay. kullay dacwa ku socoto waana la soo celin doonaa. intii laga soo celinayo hadii wax lagu soo qoro ama la use garay magacayga khalad ha u qaadanina, ha u fakirin inaan aniga ahay. it's not me, hana la raali ahaado. waxyaabo xuna lagu soo qoraa la yiri haddaba aniga arag wali maqal laakiin dadku waa sheegayeen. marka waxaan idinka codsanayaa insha Allah dadkeena wanaagsan, Soomaalideena fiican, bisha Ramadaan qeyrkeeda ayadoo ku jirno xumaan yaan loo qaadanin. hana ogaadaan dadkii sameeyay oo raba sumcadda inay dadka ka dilaan ama muuna salaad ay magaca ka dilaan, magacooda ma dili karaan. diintaaba waxay ku dhahaysaa ixtiraan qofka ka magaca fiican ama ka magaca dheer. diinta ku dhahayso ixtiraan samee. marka because of waalidkay iyo magacaan wato xumaan u qabtaan, ha igu xumaynina oo war beena iyo wax aana dhihin ha iga faafinina. intaas idin dhihi lahaa. waxaan idin sheegaa marnaba kama harayo dadka xumaanta raadiska ah wali oo jiran oo cudurka qaba oo beenta iyo dadka inay sumcadda ka dilaan raba. manihin annaga saas, mana u dhalan, mana nala soo barin. insha Allah bisha Ramadaan barakadaysan aan ayagana ku sii daay ilaahay madaxiisaan ku sii daay because aadaan u caraysanahay. waayo waxa waaye xumaantooda waxay gaartay iyo colaadooda I don't know waxa ay qabaan iyo cuqdada ay qabaan waxay gaartay inay Facebook-yada jabsadaan. shaqaala loo samaystay Facebook-yada I don't know cid ay u shaqeeyaan, laakiin diin ahaanna waa dambi. qofka bini aadanka waxa ku sameynaysa waxa tustay hadda Facebook yar waay, laakiin hadaa nafta ka qaadi kartid inaan nafta ka qaadin laakiin waa ka xumahay. ma naftana igama qaadi kartid, magacaygana igama qaadi kartid, sharaftayda igama qaadi kartid, sinjiyadaydana wax kama sameyn kartid. Soomaali waxaan weydiisanayaa hadduu hadal qaldan dadkayga macaan ka yimaado, dadkayga fiican u yimaado, Soomaalideena sharafta la u yimaado inaan aniga ahayn oonan aniga waxa sameeynin, anigana ka hadlin waxaas liiguna soo korin. dadka qaatayna waxa ugu celinayaa wali waa daba socdaa. North American joogaa, waa la daba galay, waa lagu soo maqan yahay, waana ballan in la keeno. marka intaas idin leeyahay janna idin rajaynaa, khayra idin rajaynaa. ilaahay waxaan ka baryaa bisha Ramadaan inay Soomaaliya oo dhan tay ku heshiisan noqoto, taan nabad ku noqono ilaahay inuu ka dhigo, tii aan isugu dhimaadno ilaahay inuu ka dhigo, tii aan ku walaalowno ilaahay inuu naga dhigo aan rajaynayaa. farxadaan noo rajaynayaa. meel kastoo bala ka taagantaa balada ilaahay inuu ka jaajiyaan rajaynayaa. shaydaamada xun oo waxaan soo saaraya ama dadka jajabsanaya ama suuqa wax xun marinaya ama xumaanta raadinayana ilaahay inuu naga qabtaan rajaynaya. 10 habeen u dambeeyaan ku jirnaa. waxaan ilaahay nooga baryayaa dhibaatada inuu naga dulqaado meel kastay Soomaali joogto iyo meel kastay Muslim joogo aan ka rajaynaya. marka waa idin jeclahay, anigana waxaan ogahay inay jeceshiin
shaydaanka yar ama dadka xulufaaga yar cayayaanka yaryarka ah oo facebooka ka dhex shaqeeya waxaan rajaynaa inuu ilaahay ka dhex saaro laakiin ha ogaadaan inaan ku maqanahay ha ogaadaan inaan leeyahay caruur wax barata ha ogaadaan inaan leeyahay oo IT barta oo wax walba barta kana aqoon badan marka balaayada allaha naga qabto xumaanta allaha naga qabto dadkeena waxa baabiina allaha naga qabto bil qayraysan ku jirto 10 habeen u dambaysan ku jirna ilaahay waxaan ka baryaa Soomaali kuwi tight ka dhiga ilaahay inuu ka dhigo kuwi isjeclaysi ilaahay inuu ka dhigo wixii xun allah naga dhex saaro wixii shar qabana allah ka dhex saaro Soomaali anina cafiyo masaabaxa iga tihiin waa idin jeclahay waa ka safaataxada aan marano insha Allah khayran rajaynayna wanaagan rajaynayna always waa dhaha qabiilka iyo qurunka waxa wadana allah naga dhex saaro xumaanta waxa wadana allah naga dhex saaro waa kaasa dadka qabiil u soo galay oo facebookyada u googooynayo oo u maleeyo inaan qabiil ka hadlaayana allah naga qabto dadkeena waa jeclahay annagana waa isjecelnahay hal qof haduu naga dhinta qabiil ma jiro waa isu soo gurmanaa hal qof haduu xanuunsado waa isu soo gurmanaa ka fakara taas marka balaayo wixii wado ayagay ku noqotaa ilaahan ka baryana 10 habeen adinkana waxa idin sheegaa inaad ka baridaan ilaahay inuu wadankeena noo dego dan saasay noogu jirtaa cayayaankan ordaay ilaahay hana dhaafiyo xumaanta waxa wadana ilaahay hana dhaafiyo wax khayr qaba allah siiyo sanadkan Soomaali ilmahoodana allah aruursho tahriibka allah ka reebo wadankeena allah noo qurxiyo xuntii xumaanta allah naga dhex saaro xiinka allah naga dhex saaro ilaahay intaasan ka baryaa sharafta dadka leh ama dadka aabayaashood iyo waalidkood iyo meesha ka soo jeedaan raba inay baabi'iyaan saas kuma baaba'ayaan waalidkooda u soo shaqeeyay ayagana wali sharafti waalidkood iyo legacy ayay daba socdaan marka Facebook muuna salaad gabeer waxa u jabsateen waa idinku gardaro because dadna ma caayo dadna ma xumeeyo dadna kuma aflagaadeeyo I just waxa u imaadaa in aan ka hadlo wax reality-ga ah runta ah dadka dhanna waxaan ogahay Soomaali inay meel ii wada xanuunsanayso because waa dhiigaygii waa dadkaygii waa aniga ka soo qaad aniga waay marka xagtin qof Soomaali gaartay anna waa i gaartay ilaahay waxaan ka baryaa ku isjeclaad ilaahay inuu idinka dhigo kuwi meel fiican idin geeyo isgeeya caruurtooda iyo noloshooda allah naga dhigo wadankeena kuwi dhista allah naga dhigo ilmaheena baaba'ay badaha iyo tin ka fakara ilmihiina ka fakara today waa noolna next minute waa dhiman karnaa marka no qabiil no problem no dhibaato khayr barwaaqo bashbash 10 habeen be brothers and sisters alhamdulillah salaam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh